ciroolahan waxay seejiyeen heerkii uu ku nasan lahaa dadkii iyo duunyadii uu ku soo tacabeelayay in muddo ah kama qasneed noloshiisa waa ay u toosneed wuxuuna ku ganacsan jiray nolol maalmeedka reerkiisana ka soo saaran jiray reerkana ka soo saari jiray goob yaroo ganacsi uu ku lahaa magaalada Kismaayo ee caasimadda ku-meel gaarka ee Jubbaland. hase yeeshee intaasi waxa sababta u ahaa iyo cidda dhibaatooyinkaasi u geysatay ayaa waxaa lagu ogaaday kadib quraankii lagu saaray xarunta cilaajka Daarul Taqwa. sixir lala beegsaday ayaa ka fariisiyay shaqadiisa si tartiib hadba meel loogu aasayay ayaa muddo 3 sano kadib ganacsigiisii lagu burburiyay ilaa uu ka soo qaxay magaalada Kismaayo maadaama deeqdii uu ku lahaa halkaasi lagu dhameeyay sixir qoyskiisana hal iyo meel lagu kala gamay isaga kaligiisana ku sii noolaan waayay magaalada Kismaayo ayuu iska soo aaday magaalada Muqdisho. hase yeeshee inkaar qabiyaashii sixirka intaasi ugama aysan dabaharin ilaa Muqdisho ay sixir la daba taagan yihiin walow maanta ugu dambeyn alla soo haleeshiyay halkii looga cirib tiri lahaa sixirkaasi ee cilaajka Daarul Taqwa. نرديسي وكبرسي ولا حاوجرسي نرديس على الله حاوجرسي حاوجرسي نرديس سحر وجرسي حاجة مثلا نرديس ها شغل سنيكا شغل ساوي وكسبرسي حاجة كسبرسي اسمعي كسبرسي وكسبرسي شغل كسبرسي ولا تسوي كسبرسي عمل جوتا كسبرسي ما شاء الله حاول يجستري كذا ايش ها وشغيسن واي ما ساري ايش تقول وكبرسا ها وكبرنا يا كوكس سبسكا هل كوكس سروالي لا كوني يا ما شاء الله عليك حرسك سوى بلسا وشغلي زود عليه شغليسا الله عليك ها بعي سراد لا تغيسا لا تغيسا ما تغيسا ويا ما تقدم يا رجال كي ما شاء الله مقدم الشغل جيسا شغل سكريسا راك عاد الله شافي امين الله كفر قادر الله عافيه الله كقبطه حسب الله كقبطه يا هاي الله أقول لك سيرك شغل تركيز ايوه مسكحله يا شغل انت جلس يا سيدي بدو جراي شغل كسباي اقول لك جرا كل شيء دكان كيسا اقول لك جرا صدقات حقيقه صدقات Sheekh Cali Cabdiraxmaan Sheekh Cali Mukulli ayaa ka dalbaday bulshada Soomaaliyeed inay u duceeyaan odaygaasi Soomaaliyeed. ilaahay ka qaad amiin allah shaafi waxa ku jira allah ka soo saar dadba maadis ciyaar uma leeyahay sheekh nabi maxamed allah sheegay alayhi salaatu wasalaam rasuulka la sihray soriya nabi maxamed baa la sihray alayhi salaatu wasalaam ayabkii waa godkii waa loo geliyay markii aayadda bil farqi bil balaas soo dagaysan waay nabiga alayhi salaatu wasalaam ku umaray sixirka dhibaatada uu geystay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa soo koobi kara ma wuxuu nabiga loo sheegay alayhi salaatu wasalaam qofku wuxuu ku badbaadayaa sixirka aan kareen adkaarta markuu aqriyo adkaar sabah wa masa adkaarta galabta ay kamid ka sooxay shaqadiisa waa wax lagu baabiinay sanadqad qurux badan oo dhigtay sanadqad oo dhistay baa leeyahay rag baa waxay leeyihiin dumarka kaliya ayaa laga qeeliyaa rag lagama qeeliyo ma maqashay markaas ha ragga waxaan u ilaalinaa wajigooda aan u ilaalinaa laakiin walaalkii waxaan soo bandhigaynaa arinta haysata arrin ma garanaysaa la yaab inay tahay
gurigiisa shaqadiisa laga soo yeeriyey meeladuu samaystay oo dhistay ayaa laga soo yeeriyey in lagu cibri qaato war qofka kalaamka ilaahay inuu aamino inuu asaga isku aqriyo inuu asaga akhristo subax way garab inuu akhristo adkaarta nabina maxamed noo sheegay alayhi salaatu wasalaam in la akhristo waa lagu badbaadaa xaqiiqo weeye xaqiiqo sihirna ma qabto il ma qabato jinna ma qabto qofka akhriya ولكن الله شافي انت حلو شلون الله شافي انا الله شافي ولا مسيرتي سنكا ما تفيد من يقولك راك قاعد هلقا سو صع ديما يسا اوه صع هلقا سو يسا عرر مقيم تاجت هاي ما قوان كنت يسا ما تودي يسا قال لي هلقا سو يسا راك قاعد كعب قبل لي كان كويس شافي بقى حسبان أيوه سيرت حسبان سيلقوا هيا هذا هو غلطي حكيش قال عسكر حقوها حاجة ما يقول شقي جفتي صندقات هيبة أقول قلي جفتي أقول شقي جفتي ها صندقات أقول قلي جفتي هذا شغلي بس قصة تفتي حمر أي مات هيا شو ما بقول كسب عيسى شغلات ما بقول صندقات إذا فرق شو تفتي الله شافي الله عافي إلهكم مسعود ومحمد يولكا intaan warbixin caankan ku kulmi doono asxaabay nabad geliyo